Assalaamu calaykum. Maanta waxaan rabaa inaan nila wadaago filim horor ah kaasoo lagu magacaabo Gaia. Daawasho waxaan iska taxadira. Bilowga filimka waxaan aragnaa laba ka mid ah shaqaale South African ah kuwaasoo ku dhex safraya webi ku dhex yaala kaymaha South Africa. Webigaas oo lagu magacaabo Tsitsikama. Webigaas ay ku hareeraysan yihiin kaymo aad u waaweyn. Gabi oo ka mid ah labada shaqaale ayaa waxa ay wadataa drone taasoo u adeegsanaysa inay wax ku duubto. Waxa si dhaqso ah u soo baxay wiil lagu magacaabo Stephen kaasoo waxyeelo u geystay kamardii ay wadatay. Winston ayaa waxa uu siiyay hal saac ay ku soo raadsato Gabi drone-tii isagoo u sheegay in kaymahan dad badan hore loogu waayay khatarna ay yihiin. Gabi ayaa u dhaqaaqday raadinta drone-tii ka luntay. Dhanka kale ee kaynta waxaan aragnaa Winston kaasoo sugaya Gabi ilaa inta ay ka soo laabanayso laakiin weli maysan soo noqon. Dhanka kale Gabi oo weli ku guda jirta raadinta drone-teedii ayaa waxa si lama filaan ah u aragtay wax kaasoo u eg mid basaasaya. Waxayna si degdeg ah u bilowday inay meesha ka cararto taas oo ay si lama filaan ah u gashay dabin taasoo ay dhigan dadkii kaynta ku noolaa. Gabi ayaa waxa ay bilowday inay aad u qaylido iyadoo dareemaysa xanuun. Waxayna si dhaqso ah iskugu dayday inay istaagto oo ay meesha iskaga cararto. Halka uu Winston maqlay qayladeedii ama oohinteedii halkaasuu si dhaqso ah ugu dhaqaaqay doontii si uu u soo qaato raadiyogii uu kala xidhiidhi lahaa. Laakiin nasiib darro waxa kaga dhacay biyaha raadiyogii uu watay kaasoo ku sababay inuu shaqayn waayo. Winston ayaa waxa uu u dhaqaaqay raadinta Gabi isagoo aad ugu dhawaaqaya magaceeda laakiin nasiib darro way maqli weyday. Dhanka kale waxaynu aragnaa kaynta oo isku beddelaysa midabka guduudka taasoo sabab u tahay gabalka sii dhacaya awgeed. Dhanka kale waxaynu aragnaa Winston oo ku guda jira raadinta Gabi. Gabi oo miyir doorsan ayaa waxay aragtay guri ku dhex yaala kaynta kaasoo isku dayday inay u dhaqaaqdo halkiisa. Dhanka kale Winston ayaa si lama filaan ah ku dhacay dhoobo halkaasuu tooshiisii iftiimiyay shay uu garan waayay. Isla markiiba waxa uu isku dayay inuu isqariyo laakiin waxa ku adkaatay inuu lugaha kala baxo dhoobadii. Dhanka kale Gabi ayaa garaacaysa gurigii ay tagtay iyadoo oo rajaynaysa in laga furi doono. Nasiib darro cid u jawaabtay kuma aysan jirin guriga. Gabi ayaa waxa isku dayday inay iyadu iska gasho guriga. Gabi ayaa hadda isticmaalaysa tooshka telefoonkeeda iyadoo isku dayaysa inay aragto shay ama qof laakiin guriga cidda ma joogto. Haddii aad ka heshay sidaan u soo jeedinay filimka nagu soo biiro oo ka mid noqo sidaad ula socoto qaybaha dambe ee filimka.